bulshada ku dhaqan santarka Laasacaanood ee degmada Shiraab ee gobolka Qorraxay ee deegaanka Soomaalida ayaa ka hor yimid hanaankii loo maray magacaabista degmooyinka iyo maamul magaalooyinka ay ansixiyeen xukuumadda deegaanka Soomaalida iyagoo sheegay in si cadaalad darro looga tagay xuquuqdii ay lahayd santarka Laasacaanood. dhanka kale bulshada santarka Laasacaanood ayaa sheegay inay kalsoonidii kala noqdeen xisbiga barwaaqo ee ka dhisan deegaanka Soomaalida. sidoo kale waxay sheegeen in aysan aqoonsanayn hoostagayna santarka Caleen oo loo magacaabay degmo. haddaba waa kuwana qaybo ka mid ah bulshada santarka Laasacaanood hadalladooda. halkan waxaan ka hadlaynaa anagoo ah odayaashii beesha Laasacaanood santarka Laasacaanood xuquuqdiisii qaabka loo maamulay deegaanka degmooyinka la bixiyay gobolada la bixiyay dhulka yaga baa ka weyn Laasacaanood santarka waxaa hoos yimaada 33 qabale xuquuqdoodii way waayeen qabala hoosaadka kuwa ka yar baa loo magacaabay degmo. waxaan u cabanaynaa oo aan halka ka soo jeedinaynaa dawladda federaalka baan u cabanaynaa calankii federaalka had taagan waxa weeye qaabka loo maamulay oo Mustafa Cagjar iyo dawladda iyo kabineetka u maamulay degmada ay bixiyeen iyo waxay bixiyeen baan ka soo horjeednaa waa qaadacnay ma taageersanin xuquuqdayadii baan laanahay ilaa aan xuquuqdayadii helnana waa naga karantiil calanka inaan ka taagno. ceel baa la idiin qodayaa baa liir waa la qoday waan loo biyo geliyeen saacadan xoolihii biyo dacay cabaan isbitaal baa federaalku noo dhisa tayeyntiisii iyo ambalaastiisii iyo wixiisii waalaana iskooladii wax dayactiraan weyni shacab dulman baana waxa degmooyin bal iska daayay xuquuqda aasaasiga ah baan laana waxa weeye cadaalad darrada loo maamulay baan ka cabanaynaa si sharci ah baan xaq baan u leenahay inaan cabanno. waxaan ka cabanaynaa maamulka loo maamulay degmooyinka qaabka loo dhisay loo magacaabay oo aan ka qadnay baan cabasho ka nahay saacadda laga bilaabana waa qaadacsanahay qaabka wax loo maamulay. haddii aan nahay santarka Laasacaanood iyo sodonka qabale Caleen ma hoostageen in hoos timaado maahan. annagu waxaanu nahay deegaanka Laasacaanood santarka weyn oo Itoobiya dhulkeeda ismaamulka ugu weyn baana ma doonayno teelada Cagjar iyo wuxuu qoonteeyay ma doonayno Laasaan xoolaha ka shuban Caleen ma dhama waxa lagu dhisay waa bilaqadii fadhi garaadle iyo laga qaaday Laasacaanood ma doonayno xaqdarrada u maamulay ma doonayno waa diinay federaalkan aadayna maanta ma ka dambayso Qorraxay waxba isuguma kaayi jiraan waana dulmiyeen 32 sano oo kifilku joogay bayna dulmiyayeen ma doonayno halka iyo federaal iyo baalka la yiraahdo magaciisa iyo Abi Axmed iyo dawladda federaalka ah baan aadayna. waxaan deganahay 787 kiiloomitir baan deganahay oo ilaa iyo Ceel Cad ilaa iyo Garasle intuu halka u xiga xaquuqda aan dawlad deegaanka ku leenahayna ma helno 25 sanaan degmo sugayne deegaanka aan ka tirsanayn maxaan ku iraahayeeto oo Qorraxay lama siinin wax matalaada ay ku lahayd xaquuqda ay ku lahayd dawlad deegaanka. waxaana intaa keenayo hog annaga iyo dawlad deegaanka noo dhaxeeya baa keenaya way jidhaa waxa ka jira maxaan ku raata Caleen iyo Laasacaanood 55 qof baa ku kala dhimatay inay dhex tagaan beeraha sadana mana ogolaan doonaan. waxaan u sheegaynaa dawlad deegaanka Soomaalida oo Mustafa Cagjar u weeyahay inuu dib iskugu noqdo inuu maxaan ku raata ka shiro inay midaas ku soo cadeeyaan hadday cadiifo tahayna oo ay noo geysteen dawlad deegaanka Soomaaliduna inayna dhahaan beeraha sadan nuguma leh xaquuqdayagii waxaa ku fadhiya oo Qorraxay haddaan deegaanka Qorraxaynahay weey doolla way hesho maxaan ku raaa mid bay hesho midii aan ka sugaynay Qorraxay ma ana sugayn degmo waxaan sugaynay 2 degmo waxaan sugaynay maamul magaalaan sugaynay gobol baan sugaynay gobol ma aan helin maamul magaalana ma aan helin degmooyinkiina waana laga qadiyay. waxay taasu ka dhigan tahay inaanan dawlad deegaanka xaquuq ku lahayn oonan waxba ku lahayn haddaan nahay santarka Laasacaanood iyo qabalayaasha hoostaga oo 33 ku xusan. dawlad deegaanku markay aysan nala yaabin cabashadooduna aysan nooga dhigin waxba la sugay. hadda ka hor waxa dhacday afhayeenka madaxweynaha noo yimid wuxuu noo magacaybay
degmooyin wuxuu noo magacaabay santaro hoostaga maxaan ku iraahay gobolka oo degmada ka gudba sidaa u sugaynayna waxaa la yidhi caleen hoostaga oo caleen sootaan shalay isku laynaynay maahan ma la isku kaayalaynayaa mana matasho namana matali doonta walaalaha iyo hadday u soo siyaadiyeenna waa u ogolnaha hadday annaka naqadiyeenna hadda dowlad deegaanka naqadiya haddeerba ha oga dadkan meesha ugu soo baxay waxay ka cabanayaan qaybtii ka dhacday kilka sanaad maalinkii dhaweyto taasoo ahayd cadaalad darro baarlamaanka kilka sanaadna uu ku hadlayay waxaan samaynay daraasaad istiraatiijiyad aan ku bixinay inaan istiraatiijiyad lagu bixinin oo sarfeen la soo sameeyay aan lagu bixinin oo cadiifad lagu bixiyay in jeclaysi halkaan baan ka cadaynaynaa sababtoo ah cadaynta aan sheegayaa jigjiga waxay isu jiraan shilaabo 600 kilomitir waxaa u dhaxaysa 40 degmo iyo 3 gobol Laascaanood iyo gaxan dhaale waxay isu jiraan 500 kilomitir hal degmo u dhaxaysa in cadaalad darrada halkaas baa laga arki karaa tan kale caleen degma laga dhigay deegaanka heestana waa la yaqaanaa dhulhaanta ku fadhida baaxadda laagta afar qabalaa hoos tagta caleen goodle iyo bilawariir jaleelo iyo weeraale 30 kilomitir square isu jirta caleen nabigeedu shilaabana waxaa laga dhigay ismaamul marka degmada caleen qaabka loo sameeyay qaabka loo abuuray ayadana waan jilcinaynaa baaxadda Laascaanood baan ku soo laabanayaa 37 qabalaa horta hoos haddii loo baahdan magaceeda waan sheegaynaa caleen inta hoos tagta waan idin sheegnay 15 santar way 15 santar markii la isku daro dhulahaan Laascaanood ba ka dhul balaaran marka in istiraatiijiyad lagu qaybin ee cadifad lagu qaybiyay iyo nin jeclaysi halkaan baan ka cadaynaa sidaa darteed anagu maadaama bulshadii Laascaanood waxayna dad nool oo tayo leh inta oo qofnimo leeyahay deegaankan ay uga qaadan mayso caleen lama naqaan aqoonsi xabad baa naga dhaxaysa anaga ceel dawladda Soomaaliya markana maamulaan ay maamulka nidaam nagu baabi'iyaan ay qorshahan ay isla qaateen ay yahay baan naga qaadanay mana qaadanayno cid kasta qorshaha waxaan u sheegaynaa saacadda laga bilaabo inaan ka tirsanin ከዛሬ ጀምሮ እኔ ባንዲራ ስር የገባው ፌደራል ባንዲራ ነኝ ከክልል ጋር ምንም መሐላችን ምንም የለም ለምን 36 ቀበሌ ሰንተር ስር ገብቶ እነሱ በአራት ቀበሌ ወረዳ እንዴት ወሰዱ ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ እኔ ከፌደራል ጋር እንጂ ከክልል ምንም ነገር የለኝም እንደዚህ ብዬ ነው ከዛሬ ጀምሮ ንግግሬም ስሞቴም ሁሉ እንደዚህ ብዬ ተናገርኩ waxaan cabashaanahay cabashada saakaan u taagan 20 sano cabanayn 20 sano yaan cabanaynay waxaan ka cabanaynay xaq darrada waxaan ka cabanaynay xuquuqda nolol ka qadinayo waxaan ka cabanaynay dil iyo barakac iyo dhac intaba waa ka cabanaynay dawladdan u cabanaynay waxaan nahay dad Itoobiyana muwaadila dalka u dhashay dhalashana ugu dhashay deegaanna ugu dhashay baan annagoo sidaas saaka xuquuqdii dalka dadka dawlad deegaanka loo qaybshay waana la ka qadiyay qoys ah absame oo ogaadeena oo maqaabula oo miir walaaba oo gumcadla oo musaqum cadlaho qoysa yaa waxa la yiri bahdilka hoostaga mareexan sadow adoo laf daarooda taga ilaahi baa annaga waxaan nasiiya sharaf baan leenahay nasab baan nahay waxaas noma leeka nin baa wuxuu yiri dadka dhici jiray fardoolayo khaa'ina yaa wuxuu lahaan jiray baa la yiri niman u faaliya dadka markuu dhaco faalka u dhigo subaxii dan baa la yiri war hebelow faraska hadaa ka dawo abeesa ku cunaysa abeeskii faraskii fuulay waa ku daalay naftu waa adag tahay waa markuu saaray wuxuu war isu imaada wala isu yimi wuxuu war heer dhahay war faraskii sidii waa ka ilaada anigana saawayga ilaata abeeskii ilaahay igu sabab lahaana sugud baa ka ilaatay
saaka annagu waa ka sabirnay dawlad deegaanka xuquuq waa ka weynay nabad waa ka weynay waxaan ka tirsannahay federaalka